asalaamu calaykum maqaartimaal waa joogtiin oo markale muuqaal cusub aan ku eegi doonno wararkii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadada xilligan suuqa laga diiwaangelinayo Arsenal iyo Benjamin Sesko oo markan heshiis gaaray xilli sidoo kale Arsenal ay doonayaan laacibka lagu magacaabo Maguire. Chelsea oo markan contact la sameys ama xiriir la sameys laacibka lagu magacaabo Morgan Rodgson. Liverpool oo ugu dambeyn ku dhawaaqday Florian Wirtz Son Heung-min oo markan ka dhaqaaqi kara Spurs-ka xilli Newcastle ay goolhaye ka doonayaan kooxda kubadda cagta ee Burnley. haddii aad muuqaalka ka heshan online garay kanaalkana subscribe noo saar. haddii aanu ku bilownanaha akhbaaradadii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga mar walba waxaan heegan ugu jiraa ina idin soo gudbiyo xog walba oo abdeyda waqtigaa ee soo baxdaba. marka ugu dambeyn Florian Wirtz sheekadiisa way soo dhammaatay. isbuucii hore waxaa la socotay in heshiiska oo la gaaray kooxda kubadda cagta Liverpool iyo isaga inay dhagdhag ahaayeen keliya ay dhinaayeen lacagaasi loo bixinayo iyo qancinta Bayern Leverkusen. sheekada haatan way soo gabagabowday. ugu dambeyn laacibka lagu magacaabo Florian Wirtz waa laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. wixii la sugaba ugu dambeyn Florian Wirtz soo iskeenay. maanta Liverpool way u wacan tahay ama caawaba Milos Kerkez iyo laacibka kale lagu magacaabo Florian Wirtz sheekadooda waa dhegdheg. marka ugu dambeyn jamaahiirta Liverpool qalbada ayaa markaan u qabowo qalbiga ayay ka qoslayaanba. nimanku 150 milyan ayay bixiyeen. 150 milyan qayb ayaa loo bixinayaa. wax walbana gadaal ayay kasoo wada bixi doonaan qaabka lacaga loo bixinayo. xitaa xidigan heshiiskiisa waxaa qayb ka noqonaya haddii uu koob kula guuleysto kooxda in lacaga gunooyina kooxda Bayer Leverkusen ay heli doonto oo marka faa'iido badan ayay Bayer Leverkusen laacibkan ka sameeyeen. marka 150 milyan lagu daray dhacdhac kale oo ka imaanaya adiga Liverpool lacag ayay markaan bixiyeen. nimanku markaan kambiyaalo weyn ayay galeen. Florian Wirtz markan wuxuu noqonayaa laacib weyn oo kusoo biiraya qalcadda Anfield. marka Liverpool ugu dambeyn sheekadii muddada dheer taagneed ugu dambeyn waa iska soo gabagabeeyeenba. dhinaca kaleetana kooxda kubadda cagta Arsenal iyaguna caawa suuqooda waa jam. warar badan ayaa kasoo baxaya kadib sheekada Martin Subamendi oo muuqaalkii horeba haatan 2 saac camal ayaa kasoo wareegtay sidaan qiyaasayaba. marka kooxda kubadda cagta Arsenal haatan heshiis ayay la gaareen laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko. sheekadana marka waa gabagabo keliya waxaa dhiman RB Leipzig inay qanacdo. Arsenalna markan waxaa laleeyahay lacag 80 milyan ayay bixinayaan. marka Benjamin Sesko oo ah ciyaaryahan cajiiba nin lambar 9 ka ciyaara Arsenal ayaa markan soo qaadanaysa. Arsenal ninkan way u rafaadeen 2 season ayay Benjamin Sesko daba taagnaayeen. xitaa mar ayuu ku dhawaaday inuu ku biiro suuqii haatan ahay kii ka horeeyey inuu ku biiro ayuu ku dhawaaday. laakiinse sheekada dhan way fashilantay. gadaal ayay sheekada ka burburtay kadib ninkan markii lagu qanciyey in kooxdiisa kontrakta cusub oo siiyo waqti dheerna uu halkaas sii joogo. laakiinse Arsenal kama saamirno dib ayay ugu noqdeen. haatanna qarka ayay u saaran yihiin laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko inay soo xirigeliyaan. marka waan arki doonaa sheekooyinka wixii kasoo kordha. dhinaca kaleetana macalin Mikel Arteta ayaa markan wuxuu doonayaa soo xirigelitaanka Maguire waa difaac khabiira oo isbishal ah. laacibkan kooxa badan ayaa aad u baadigoobiya Premier League ka dhisan. Manchester United, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, Newcastle dhammaantood heegan ayay ugu jiraan. macalin Mikel Arteta haatan wuxuu doonayaa laacibkan inuu soo xirigeliyo. Maguire ayaa ka saaciday kooxdiisa kubadda cagta Crystal Palace ku guuleysiga tartanka caanka ah ee FA Cup-ka. marka nimanku sanadan jalxadda way qaateen markaana waxay rabaan in ay xidiga badan ka macaashaan. Maguire oo kaleeto lacag badan ayaa lagu helayaa. ninka lambarka 10aad wata Eliza sidoo kaleeto. marka nimanku waxyaabo badan ayay markaan rabaan inay ka macaashaan. Arsenalna markan waxay rabaan ninka lagu magacaabo Maguire inay soo xirigeliyaan. dhinaca kaleeto kooxda kubadda cagta Man City 4 saxiix ayay sameyseen waa la socotiin. haatan waxaa si rasmi loo soo bandhigay Ryan Churchill ayaa lasoo bandhigay. laacibkan markan wuxuu yahay laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City. laacibkan ayaana qayb ka noqon doona xidigaha kalabool kaabka kooxda Man City ee ku duulan tegi doonta. marka kooxda kubadda cagta Man City suuqa waa u shidan yahay waa u camiran yahay camal. marka nimanku sidaas oo taa xidiga kale ay raadinayaan goolhaye ayay baadigoobayaan. Donnarumma iyo Stegen iyo midkood ayaa la filaya inay soo qaadi karaan. xitaa maanta xataa waa ogeedeen oo goolhaye ayay qaateen oo goolhaye duqa ahay ay ku bedeleen. adiga ugu dambeyn Manchester City Ryan Churchill way soo bandhigeen markaana wax kale ayay suuqa ka baadigoobayaan. marka Guardiola iyo sheekooyinka kale oo la yimaadana waan arki doonaa. dhinaca kaleeto kooxda kubadda cagta ee Chelsea caawa xaaladda uma fadhido.
adiga wiiganba waa ogtiin xaaladoodu laba saxiix ayay haatan luus gareeyeenba kooxda kubadda cagta Chelsea. Goolahayihii AC Milan sheekadiisa ma fadhiso oo markan heshiiskaas waa burburaba. Haatan Chelsea waxay u dhaqaaqeen laacib lagu magacaabo Morgan Rogers ayay u dhaqaaqeen kaas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa. Ninkan u dhaqaaqid keliya lama sameyn oo contacti ayaa la sameeyey ama xiriir toos ayaa laacibka lala yeeshay. Xidigana Chelsea waxay dooneen inay soo xirigeliyaan laacibkan si qaas wuxuu u taageeraaba Kyle Palmer oo saaxiibo dhowna ay yihiin. Sidaa daraadeed Chelsea ayaa midda ka faa'iideysanaysa waxayna rabaan xidigan inay soo xirigeliyaan. Marka kooxda kubadda cagta Chelsea haatan tilaab waxay u qaadayaan laacibka lagu magacaabo Morgan Rogers kaas oo Aston Villa u ciyaara walow Aston Villa ay cagajiid badan muujinayaan oo laacibkan aysan rabinba inay iibiyaan. Arsenal iyo Chelsea dagaalka markaan laacibka loogu jiro ayay markaan qayb ka noqonayaanba. Dhinaca kaleeto kooxda kubadda cagta Real Madrid waa la socoteen inay la wareegeen Frank Mastantuana ayay soo xirigeliyeen laacibkan cajiibka ah. Ugu dambeyn wuxuu ciyaarayaaba koobka kooxaha adduunka. Xidigan koobka kooxaha adduunka ayuu ciyaaraya. Madrid iyo Xavi Alonso ragga ay la soo shirtagi doonaan ayuuna qayb ka noqonaya ninka lagu magacaabo Frank Mastantuana. Marka Real Madridna haatan waa la shaaciyey ninkan inuu koobka kooxaha adduunka ciyaarayo. Sidoo kaleetana arrimaha xilligan taagan qayb waxaa ka noqonaya kooxda Isbaariska walwal weyn ayaa haysta maadaama kabtankooda ninka lagu magacaabo Son Heung-min markan uu ku jiro waqtigiisa ugu dambeeyay kontraktiga. Laacibkan Sacuudiga ayaa lagu gacanaatinaya. Isbaariska markan walwal weyn ayaa haysta oo laacibkan ku aadan iyaguna haatan waxay ka shaqeynayaan in laacibkani sii celiyaan oo waqti kale ay sii siiyaan laakiinse isagu weli jawaab ma uusan siin inuu kontrakti uu kordhi doono in kaleetaba. Marka Tottenham walwalka ayaa haatan haystaba. Dhinaca kaleeto Newcastle oo kaleeto markaan eegno goolhayo lagu magacaabo James Trafford kaasoo Burnley shaqo ilaaliyay ayay doonayaan. Xidigan ayay rabaan inay haatan soo xirigeliyaan. Marka kooxda ka dhisan SD James Park markaan waxay u dhaqaaqayaan goolhayahan lagu magacaabo Trafford. Marka James Trafford markaan wuxuu u dhaqaaqi karaa qalcadda AC James Park ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Newcastle. Haddii aad muuqaalka haysan walaal garay kanalka subscribe noo soo gudbay.